Gabadhani waa gabadh carmal ah. Waa gabadh wanaagsan. Ninkeedii ayaa waxa uu uga tegay gabadh yar. Markii da'deedu ay ahayd 10 sano, hooyadani waxa ay bilowday inay suuqa ku iibiso khudrawaadka iyo faakahada ama qudaarta si ay gabadheeda wax u barto, cuntadana ay ugu bixiso. Ilaa iyo gabadheedii ay ka saartay jaamacadda siiba kulliyadda caafimaadka. Gabadhii ayaa Ilaahay waxa uu ku irsaaqay nin hanti badan haysta, kaasi oo u oggolaaday inuu u furo xarun caafimaad ugana furo xaafadaha heerka sare ah. Xaafadahaasi oo u dhow meesha hooyadeed degan tahay. Gabadhu iyada oo aan ilowsanayn siday hooyadeed u soo balanbali jirtay markii ay iyada korinayso iyo dhibaatooyinkii ay u soo maraysay korinteeda, ayay haddana mar walba hooyadeed waxay u canaanan jirtay si xun. Waayo hooyada ayaa mar walba waxay u soo diri jirtay gabadheeda digtooradda ah, gabadh jaar ay yihiin oo xanuunsanaysa waxna aan haysan, si ay si bilaasha ugu daweyso kuna caawisana hantiga loogu talagalay inay isku daweyso. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadhii waxa u soo gashay haweeney 60 jir ah oo uu wado wiil ay dhashay. Waxayna fiirisay sida wiilkaasi uu hooyadiisa 60 jirka ah ugu dadaalayo. Waayo wiilku hooyadii gacanta ayuu hayaa, cabaayadana waa uu u hagaajinayaa, cuntana afka waa uu ugu gurayaa, haddana intaasoo jirta kursiga ayuu u hagaajinayaa. Markii ay weydiisay wiilka dhibaatada hooyadii haysata iyo qaabkii uu uga dalbay baaritaanada, waxa ay weydiisay qaabka caqligeedu uu yahay. Waayo sida ay su'aalaha uga jawaabayso iyo qaabkay ula macaamilayso digtooraddu ma miisaanayn. Wiilkii waxa uu u sheegay gabadhii ilaa iyo markii hooyadiis umushay inay maskaxda ka jiranayd, isaguna uu yahay qofka daryeela ee dharka u dhaqa iyadana u qubeeya. Markay weydiisay sida uu ugu keeni waayay gabadh u shaqaysa, taasi oo weliba qaab ahaanna isagu uu ku farxi lahaa, waxa uu u sheegay in hooyadii ay tahay qof miskiin ah oo aan cabanin, oo uu weliba isagu uga baqayo in gabadha uu u keenayo shaqaalaha ahi ay hooyadiis dhibto, isaguna sidaas si la mid ah uu ugu dadaalayo inuu u soo jeedo oo uu dawada iyo cuntadaba siiyo. Gaar ahaan waxa uu u sheegay in hooyadii sonkor qabto. Dhakhtaradii yarayd baa la yaabtay ninkan dhalinyarada ah sida uu baariga ugu yahay hooyadiis. Ilmada ayayna isku celisay, waxayna maqashay hooyadii aan xaalkeedu saxnayn oo wiilkeeda ku leh, koormaad ii soo iibinaysaa lowska, koormaad ii soo iibinaysaa macmacaanka, isagoo ku leh hooyo haddaan aadaynaa. Hooyadii oo faraxsan baa waxay leedahay hadda. Wiilkii ayaaba dhakhtaradii ugu jawaabay, anigu waxaan ku farxayaa farxaddeeda si ka weyn sidaan ugu farxayo ilmahayga yar. Iyada oo dhiigga ka cabiraysa hooyadii gabadhii dhakhtaradda ahayd ayay weydiisay in ay ubad kale la dhasheen ninka, waxaana uu ugu jawaabay inuu keligii madi u yahay hooyadan, ninkii gabadhan qabayna uu furay 2 bilood kadib markii uu guursadayba. Taasina waxay ku dhacday in caqliga ay dhaawac ka gaadhay markii aabaheed uu ku dhintay horteeda. Hooyadeed ama ayeeydii isaga ayaana ahayd ta dhaqaalaysa gabadha iyo ilmaha yarba ilaa uu 10 sano ka soo gaadhay oo ay ka dhimatay. Digtooradii ilmeynaysa ayaa waxay weydiisay, hooyadaa miyay adiga xanuunka kugu ilaalisa? Miyaad si xasuusanaysaa in hooyadaa ay ku muhiimad siin jirtay ama ay farxad ku ahayd xilligaad faraxdo, markaad oydana ay ooyi jirtay? Gabadhii ayuu ugu jawaabay, waxaan kuu sheegay hooyada ilaa 10 jirkaygii inaan anigu gacanta ku hayo,
iyaduna markay dhashayba ay waalatay. Gabadhii ayaana dhakhtarkii qortay wiilkii iyo hooyadiina waa ay baxeen. Waxayna u sheegtay gabadhii kalkaalisada ahayd inay u baahan tahay xilli ay nasato. U cudurdaaro bay ku tiri cidda soo galaysa, iyadoo barooranaysa oo qolkeeda ku jirta, dadkuna ay dibadda ka maqlayaan, ayay waxay lahayd sidaas ayuu ula macaamilayaa iyadoo aan hooyo saxaba u ahayn. Way qaaday wayna dhashay bes, iyadoo aan u soo jeedin, rabaynin, aanna la qaadan kulayl iyo qabow, macaan iyo qadhaadh noloshaba. Sida hooyaday oo kalena ma aysan yeelin. Hooyadayoo mar walba culaysyada u qaadi jirtay si aan anigu u noolaado una koro. Mar walbana iyada oo daalan galabtii dhoolla caddayn iigu imaan jirtay. Gabadhii ayaa waxay mar walba nafteeda ku lahayd miisaan xumahay, aniga ma aan raacin xadiiskii rasuulka ee ahaa raalli ahaanshaha Rabbi waxa uu ku jiraa raalli ahaanshaha labada waalid, cadhadiisuna waxa ay ku jirtaa cadhada labada waalid. Iyada oo markaa ooynaysa ayay hooyadeed u laabatay, una sheegaysa inta ka hadhay nolosheeda inay iyada la joogayso, ayna u baari fali doonto, amarkeedana ay ku shaqayn doonto. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.